assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi. madaxweynaha turkiga ayaa khudbad qiimale ka jeediyey mar uu ka qaybgelayay dhalashada suubanaheeni nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee uu ka qabsoontay magaalada ankara ee caasimadda turkiga. waxa uu madaxweynuhu ugu horraantiiba hoosta ka xariiqay in qof kastoo turkiya uu wadnuhu u garaaco qof walboo muslima meeshuu doona adduunkaha ka joogee, laga soo bilaabo aasiya, afrika, kowkaaska, balkanka, badweynta hindiya, saxaraha galbeed. waxa uu xusay isfaham wanaagsan in ay ku dadaaleen inay gebi ahaanba u gurmadaan dadyowga islaamka meel kastay ku nool yihiin, iyagoo ka daryeelaya quudinta dadka aan waxba haysan iyo caafimaadka. waxa uu sheegay laga soo bilaabo soomaaliya, liibiya, falastiin iyo yukrain inay dowladda turkigu faraha ku hayso mashaariic horumarineed oo kala duwan. dadyowga muslimiinta ee halkaa ku dhibaataysanna ay had iyo gooraale u taagan tahay sidii ay u caawin lahayd. waxa uu yidhi waxaannu u gargaaraynaa danyarta, isagoo fiiro gaar ah ka leh gargaarka horumarineed iyo howlaha diblomaasiyadeed. waxa uu sheegay bini'aadannimadu inay tahay tan ugu wanaagsan ee laysu caawiyo adduunka oo dhan. waxa uu yidhi madaxweyne erdogan waxaannu kaga jirnaa kaalinta koowaad marka ay noqoto caawinidda dadka muslimiinta ee dulman. waxa uu sheegay madaxweyne erdogan maraykanka iyo reer galbeedku inaanay ahayn kuwa dulman, balse annagu aanu nahay kuwa dulman haddaannu nahay muslimiinta. had iyo gooraalena warbaahinta reer galbeedku ay afka ku hayso aflagaadada diintayada iyo caqiidadayada suuban. waxaannu nahay kuwo ilaahay iimaan ugu deeqay adduunkana aan kalsoonin weyn ku qabin. waxa uu sheegay culimmadii halkaa ka soo qayb gashay in dowladda turkigu ay dhaqaalo wanaagsan siiso hay-adaha u qaabilsan daryeelka dadka muslimiinta ee adduunka, kuwaas ay ugu horrayso diyaanadka xafiiska madaxtooyada, tiika, afad iyo hay-ado kale oo aan dowli ahayn oo aannu u sii marino gurmadka degdega iyo gargaarada dadyowga muslimiinta ee ku dhibaataysan adduunka. waxa uu sheegay inay jiraan dad aan heli karin rooti ay afka gashadaan, qirayana magaca ilaahay iyo suubanaha maanta aynu xuskiisa halka u joogno, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. dowladda turkiguna ma aha mid oggolaanaysa inay adduunka iyadu wax ka soo daldalato, balse waa mid had iyo gooraale u taagan inay u hiiliso dadka muslimiinta ah. waxa uu sheegay kuwa adduunka hantida ka gurtaa inay yihiin dalalka reer galbeedka ah oo aan iyagu aqoon sida dadyowga wax loogu celiyo. erdogan waxa uu sheegay culammadii ka soo qayb gashay kulanka isagu inuu yahay shakhsiga ugu horreeya madaxda islaamka ee difaaca diinta islaamka. waxa uu weydiiyey bal inay soo saaraan hogaamiye isaga u dhigma markay noqoto difaaca diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah. waxa uu sheegay inaanu weligiisba ka labalabayn inuu goobaha caalamiga uu ka hadlayo ka xuso arrinta muslimiinta iyo dowladaha muslimiinta ee dhibta ku jira. waxa uu sheegay waxaan sameeyaa wax kastoo islaamku ifaray, dowladdayduna waa mid sidaasoo kale samaysa. isagoo ka hadlayay nacaybka iyo dembiyada sii faafaya, waxa uu sheegay in dhowaantan la laayay carruur yaryar oo aan waxba galabsan. taasuna waxay caddaynaysaa ayuu sheegay inay tahay nacayb islaamka loo qabo. waxa uu sheegay nacaybka ugu weyna dadka muslimiinta iyo magangelyadoonka dowladaha u qaba inay ugu horrayso dowladda ay deriska yihiin ee griiga, oo uu sheegay iyadu badaha mediteraneanka iyo ejiyaanka inay ku dejiso maraakiibta ay saaran yihiin dadka masaakiinta ah ee laajiyiinta ah, halka ciidamada turkigu ay deg deg u gaaraan soona badbaadiyaan dadka wixii ay soo badbaadin karaan. taasuna ay tahay midaannu ka barannay caqiidadayada suuban, diintayada islaamkuna ayna farayso inaannu u gurmanno dadka baahida qaba. waxaase uu sheegay in dowladda griigu haatan ay ka helayso garab dowladda maraykanka, ayna iska kaashanayaan siday u colaadi lahaayeen dowladda turkiga. waxaase uu yidhi waxaan u sheegayaa dowladaha isu kaashanaya turkiga in dadka turkiga ay yihiin dad muslimiin ah, aanayna ka welwelin waxa berri dhacaya, adduunkana aanay isku hallayn, balse ay yihiin kuwo sharaftooda difaacaya ilaa iyo kan ugu dambeeya. waxa uu sheegay inaanay jirin wax farqiga u dhaxeeya fito iyo daacish. maruu ka hadlayay kooxaha kurdiyiinta ee la dagaalamaya dowladda turkiga ee fito iyo daacish, waxa uu sheegay inaanay jirin wax farqiga u dhaxeeya. waxaan ayuu sheegay inay ka faa'iidaystaan danahoodana ku fushadaan diinta islaamka, una macnaysaan qur-aanka siday iyagu doonayaan. waxaana uu sheegay inay iyagu yihiin kuwa magacxumada ugu weyn u soo jiiday islaamka. had iyo gooraalana dowladaha reer galbeedka warbaahintoodu
ay afka ku hayso nacaybka iyo cayda islaamka. Waxa uu sheegay kooxahani inay sameeyaan waxyaabo diinta islaamka oo dhamme ay reebtay, ayna ugu weyn tahay dad masaakiin oo aan waxba galabsan oo ilaayaan. Waxa uu yidhi waxaannu garanaynaa kooxahan iyo cidda ka dambaysa hantidana ku bixisa. Erdogan ayaa sheegay dowladda Turkiga iyo isaga shakhsi ahaanba inuu sii wadayo difaaca diinta iyo dadka muslimiinta ah. Waxa uu sheegay inuu u gargaarayo muslimiinta meel kastoo ay joogaan, marka ay noqoto u hadlidoodana aanu ka labalabayn doonin inuu difaaco diinta iyo dadka muslimiinta ah.